saaka subaxnimadii hore waxaa degmada Laascaanood ka anbabaxay wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Ducaale oo u socday ka qaybgalka caano shubka ugaaska beesha Xasan Ugaas. waxaa la sheegay wafdigan in qaar ka mid ah ciidamada Puntland ay ka xidheen wadadii ay u mari lahaayeen caano shubka ugaaska beesha Xasan Ugaas. waxaana ay sheegeen odayo iyo waxgarad la socday garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Ducaale saddex askari oo ka mid ah ciidamada Puntland in ay taas ku fureen waqti ay taagnaayeen kantaroolka degmada Tukaraq. xasan faarax oo ku magac dheer xasan geerash ayaa ka warbixinaya arintaas. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina maxamed wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallim. وحسن فارح جامع حسن جيرش جوجا مقالة لاسعانود وسنة ككوديسي لبكونية سديدية طبعا حان أمدا سومالي لان بسو قد بنيا وركن عن هاين ور ونأكسن وعن ساكا لكم لناي ساكا عرورتي بعنيقو يو قراتكي shan baabuur wata iyo odayaal lagu casumay garaadka lagu caano shubayo Tukaraq meesha leeyahay waxa la buuro wadal geeda midha leh oo buuro wadal 5 kilomitir bariga ka xigta halkaas aan aroortii u anbabaxnay saacadu markay 8 ahayd markaan Tukaraq maraynay iyana la joojiyay waxaana la ku yiri taarkooyinka fura Somaliland waxaanu dhin furmayna taarkooyinka Somaliland meeshaan ku soconno waa cari dhulbaxante sidaa darteed ma furayno waana xuduudka Somaliland taarkooyinka furmayno way isugu ka yimaadeen nimankii askar ku sheegay oo meesha joogay garaadkii baa soo degay أنا أقول رأيو سيدا مركي اللي يقولي قرأت كانوا حيري تاركة فرمين حرقة نقا قاعدة ما إني كقاعدة إنه باليدي يبقى ده قرأت وحيري رفكا والمريا مركو وددي كدقي بصدح من رصاص كفرت رصاص ويران صدن حبا قرأت كان يقولي أنا رصاص بالي وقبتي هذا النقون wadnaha kaaga soo saarayna baa la yiri sidaasaan waxaan amraynaa dul soo noqono waan anagu caalanka Soomaaliland dejin mayno furi mayno waa dhulka yagii dabadna waa soo kala jeesanay garaadkiiba oo baxay baan u yeernay garaadkii wuxuu ku adkaystay inuu rafka marayo laamina marayn sidaasuu ku tagay aniga iyo odayaal kale dib baan u soo noqonay. xasan faarax jaamac xasan geerash waxa uu hadalkiisa ku sii daray baabuurta ka kala adeegta degmada Laascaanood gudaheeda 3 meelood oo meel in ay wadato lambarka Puntland waa sida uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in ay tahay nasiib xumo taasi. waxaa nasiib daraa in magaalada Laascaanood baabuurta 3 meelood oo meel waxay wataan lambarka Puntland cid waliba way ogtahay madaxdooda iyo naway yimaadaan ama ku yimaadeen ogolaasho ama tuugaha ku yimaadeen way yimaadaan. waxaa nasiib daraa dhulka calanka furana la ku leeyahay waa dhul Somaliland waa dhul baxante waa buuro wadal وقاعدة من عليه وحنوشينا دمان مسؤولين تا Somaliland اللي شكل تبعهادين هير قرن هير قبل هير دقمو أرين تعصو أرين أعنتنتا ومدة Somaliland هنا ينحين وأنو كيجي وحدود كيجي وديقان بالبعض على كفر ميشن الكويدي ماشي قرأت كلا جور أساسي يعني قال يجيروا أساس بالوفر يعداد النقل وماشي سيد عصر وعليه هاي قرأت كحتى وعيروا عن دافي عدة إن حكمت النوشيقة أن الله هذا اللي
waa laga diiday waa markuu rafka maray waxaan leeyahay ummadda Somaliland in dhulka iyagii inama yar oo waliba aan oran karo shaati dawladeedna waa gashan yihiin waana qabiil annana reer baan ahayn qabiilkii meesha lahaa annaga haysanana soo celiyay tuutana gashaday dalkana sida loo wada degan yahay iyo sida la yahay waa la og yahay haddaan tallaabo laga qaadin sharciga waafaqsan arrinta iyada ee maanta lagu dhacday waan dowladda Somaliland qaadin iyo waxgaradku dhibaatada ka timaada de mas'uuliyadeeda anuu Puntland la hadli maayo iyada askartan meesha dhigatay reerka ah markii damana annagii markiina la celiyo saa la yeelay kolayadii nagu xigtay waxay ahayd kolay reerka meesha degan uqaashoodii baa wadatay iyagii toos baa looga qaaday waa qorshana loo ku talagalay waxaan leeyahay waxa laga qabto dawladdu Somaliland waxa ka qabato waana mid Puntland mas'uuliinteeda iyo madaxdeeda meeshuu jooga ninkii taliyaha qaybta lahaa in xukumay oo la yiraahdo ina Fortain Aadan Fortain meeshuu jooga waana arkay markii rasaastu nagu dhacsay noomana imaan waxaan leeyahay arrinta si degdega wax looga qabto sida sharciga waafaqsan qarannimada waafaqsan dastuurka waafaqsan baan codsanaynaa in wax looga qabto garaadkiina boocan uu ka soo wareegay wuxuuna halkaa ka galay geedo midho leh waxaana isku ognahay oo uu yidhi laamiga mar damba mari maayo marka dambana waxaan soo marayaa rafka waxaana calanka dejiya iyo dejin mayno lambarka Somaliland iyagoo kuwoodii boqolaal ay laascaanood joogaan oo ka shaqaystaan oo ka baxaan oo soo galaan dejiya dhulka iyagii in la ku yiraahdo xuduudkii ka sakeeyay buura wadal geeda midhale eedda waxaa leeyahay aan taagnahay wax ka qabadkeeda qaranka Somaliland waxaa kaloo aan u sheegayaa dhulka waa la wada degan yahay reerba meel buu u badan yahay waxaan u arkaynaa reer ahaan in reer noo celiyey reer ahaan baa reer noo soo celiyey kuwii tuutaa gashana ee magaca ciidanka Puntland sheeganayay oo mas'uuliyiinteedii iyo odayaashoodii ag taagan yihiin baasaa noola dhaqmay baabuurtii naga dambaysay ee odayaashii deegaankaasu lahaayeenna toos baa loo sii daayey waa mid kale oo iyana eed ah oo eed qabiil ah tii qarankana waa sheegnay insha Allah mid qabiil iyo mid qaran baa arrintaas sidii wax looga qaban lahaa yaan ummadda Somaliland insha Allah ka rajaynaa waana salaamintiin Khadar Faarax Khadar Rigaa wararka warbaahinta SBS la sacanood